waxaa go'doon siyaasadeed iyo weliba mid dhaqaale wajahaya maamulka Somaliland oo 2 bilood ka hor duulaan iyo weliba dagaal ku qaaday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xilli dad cadhaysan oo ka cabanaya nidaamka maamulka Somaliland ay iskugu soo baxeen dariiqyada iyo weliba sidoo kale wadooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo ciidamada maamulka Somaliland dhowrkii sano ee ugu dambeysay ay ka geysteen jarimooyin iyo weliba dilal joogto ah u geysanayaan haldoorka iyo weliba shacabka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool arintan ayaana ku soo aadaysa xilli ciidamada maamulka Somaliland ay dileen mas'uuliyiin iyo weliba sidoo kale dad shacab ah oo haldoor iyo weliba indho u ahaa dadka shacabka ee ku dhaqan guud ahaanba gobolka Sool maalmo ka hor qaar ka mid ah golaha wasiirada ee maamulka Somaliland ayaa si cad u sheegay inaysan helin wax mushaar labadii bilood ee la soo dhaafay isla markaana la kala dirayo golaha wasiirada iyo weliba hay'adaha maamulka Somaliland ee kala duwan waxaana uu si cad u sheegay gaar ahaan in la kala diri doono golaha wakiilada golaha guurtiga iyo weliba sidoo kale xukuumadda oo gabi ahaanba loogu baaqayo inay ka qayb qaadato dagaalka ka socda magaalada Laascaanood waxaana Muuse Biixi uu si cad u sheegay in gabi ahaanba wax mushaar uusan bixinaynin ilaa iyo golaha wasiirada iyo weliba sidoo kale hay'adaha dawladda ay gabi ahaanba ka qayb qaadanayaan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxayna u muuqataa maamulka Somaliland oo wajahaya culays siyaasadeed iyo weliba sidoo kale mid dhaqaale inay ku fashilmeen dagaalka ka socda magaalada Laascaanood 2 bilood Somaliland ayaa gabi ahaanba lumisay dawladaha dariska iyo weliba sidoo kale gaar ahaan dawladda Ethiopia oo iyadu markaasi ugu baaqday in Somaliland ciidamadeeda kala baxdo duleedka magaalada Laascaanood waana arinta markaasi Somaliland lagu badbaadin karay xilligaasi sida ay sheegayaan qaar ka mid ah khubarada amniga ee markaasi wadamada dariska waxaana Ethiopia marar badan ay markaasi ugu baaqday in Somaliland ciidamadeeda halkaasi ay ka saarto sifa ay u soo laabato ganacsigii iyo weliba sidoo kale isku socodkii Ethiopia iyo weliba maamulka Soomaaliya qaar ka mid ah sirdoonka waddanka Ethiopia oo maalmihii ugu dambeysay ku soo laalaabanaya madaxtooyada maamulka Somaliland ayaa kula talinaya Muuse Biixi in ciidamadiisa halkaasi kala baxo arintan oo markaasi ahayd arin u muuqatay in haddii uu Muuse Biixi ciidamada kala bixi lahaa duleedka magaalada Laascaanood inuu heli lahaa calaqaadkii iyo weliba taageeradii joogtada ahayd ee uu ku heli jiray maamulka Abiy Ahmed dhinaca kale sirdoonka waddanka Ethiopia iyo weliba guud ahaanba maamulka dalkaasi ayaa iyaguna u sacabatumayay sidii dagaalku ugu fidi lahaa deegaano horle ugu yaraana dagaalku uga dhici lahaa deegaanada maamulka Puntland arintan oo ciidamada maamulka Somaliland gabi ahaanba ay ku fashilmeen sidoo kale tan ay dhaafi waayeen duleedka magaalada Laascaanood ayaa iyadana dhabarjab ku noqotay Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha maamulka ee dalka Djibouti ayaana gacmaha ka laabtay dagaalka uu galiyay Muuse Biixi Cabdi ciidamo fara badan ayay jamaahiirtu ku qabteen duleedka magaalada Laascaanood kuwaasi oo ka soo jeeda waddanka Djibouti waxayna u muuqataa Djibouti in tan iyo intii uu dagaalka ka bilowday 6 February magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool in Djibouti ay markaasi ciidamo keentay sifa gabi ahaanba loo baray gantaalo ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan duleedka magaalada Laascaanood xogtan ayaa muujinayso in Somaliland gabi ahaanba aysan gacan ku haynin siyaasad arrimo dibadeed iyo weliba mid dhaqaale waana mid keentay in maamulku gabi ahaanba kala diraan hay'adaha kala duwan ee maamulkaasi qaar ka mid ah wasiirada maamulka Somaliland ayaana la sheegay inay ka baxsadeen waddanka iyadoo weliba wasiirka warfaafinta ee maamulka Somaliland Salmaan Korre shalayta la sheegay inuu gabi ahaanba aaday dhanka waddanka Ethiopia iyadoo weliba hanjabaado kala duwan iyo weliba goodin markaasi uu kala kulmayay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka Somaliland kuwaasi oo dhowr mar ku weeraray gurigiisa iyo weliba goobtiisa shaqo wasiir Korre oo markaasi u dhashay deegaanada dirtu ay ka socoto ee gobolada ACC ayaa dhowr mar markaasi shacabkiisa ugu baaqeen inuu iskaga baxo uu la mid noqdo wasiirkii ama ee gudoomiyihii golaha wakiilada ee maamulka Somaliland oo haatan qayb ka ah kacdoonka markaasi laga hortagayo ciidamada maamulka Somaliland arintan oo wasiir Korre dhowr mar uu dhagaha ka furtay sidoo kale tan uu ku tilmaamay in argagixisay ay yihiin waxa ka dagaalamaya magaalada Laascaanood ayaa ugu dambeyn ka baxsaday kadib markii uu dul qaadan waayay weerarada joogtada ee weliba tacadiyada ay ciidamada maamulka Somaliland u geysanayaan ehelkiisa iyo weliba sidoo kale gurigiisa waxaana uu sheegay wasiir Korre oo la hadlayay warbaahinta inuu gabi ahaanba ka badbaaday dhowr shirqool oo uu dhigay Muuse Biixi kuwaasi oo ahaa ugu yaraan in la khaarijiyo ama markaasi in xabsi guri laga dhigo
wasiiro iyo weliba sidoo kaleeto agaasimayaal ka tirsan maamulka Somaliland ayaana xabsiga ku jira kuwaasi oo u dhashay beesha Daarood. gudaha dagaalka ayaad moodaa in wajigan labaad ay Somaliland haatan kusoo daabulaysa halkaasi ardayda jaamacadaha kuwa iskoolada iyo weliba sidoo kaleeto qaar ka mid ah xubnaha dowladda ee maamulka Somaliland daacadda oo gaar ahaan madaxweynaha ayaa shalay wiilkiisa u soo diray magaalada Laascaanood si gabi ahaanba halkaasi ooga dagaalamo. waxaadna moodaa dagaalka ilaa iyo xilligan inuu yahay mid aan istaagaynin. saaka waxaa magaalada Laascaanood markaasi ka dhacay israsaasayn iyo weliba sidoo kaleeto hubka noocyadiisa kala duwan oo ciidamadu markaasi ay isku adeegsanayaan. waxayna u muuqataa ilaa iyo xilligan inaysan jirin wax tanaasula oo dhinacyadu halkaasi ay ka muujinayaan, mana jiro wax wada hadala oo u socdo dhinacyada ku dagaalamayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Somaliland ayaad moodaa in gabi ahaanba ilaa iyo xilligan ay halkaasi ciidamo kusoo daabulayso iyadoo weliba uga gole sidii ay mar labaad gacanta ugu dhigi lahayd magaalada Laascaanood, halka jamaahiirta iyo weliba ciidamada dadka deegaanku ay isku fidiyeen deegaano hor leh iyo weliba sidoo kaleeto godka saldhigga weyn ee markaasi Gooja Cadde oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Somaliland. waxayna u muuqataa in dagaalku uu markaasi dib u bilaaban doono marka la eego sansaanka iyo weliba sida ay markaasi ku waabarisatay magaalada Laascaanood oo saaka laga dareemayo hanaan markaasi dagaal. xaaladda magaalada Laascaanood ayaa weli kacsan. maamulka Somaliland ayaana eedeymo culus u jeedinaya dhinacyo kala duwan oo uu ka mid yahay taliye Morgan oo markaasi ay ku eedeeyeen in uu qayb ka yahay dagaalka ka socda duleedka magaalada Laascaanood. General Morgan ayaana ka soo muuqday hotel ku yaala magaalada Garowe halkaasi oo xalayto uu ku tukaday taraawiixda. waxa uu sheegay in isagu uusan weli tagin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. maamulka Somaliland ayaana tan iyo intii dagaalku ka bilowday duleedka magaalada Laascaanood waxa ay wadeen eedeymo iyo weliba hadallo xanaf leh oo markaasi aan loo meeldaynin oo ay u jeedinayaan dhinacyo kala duwan, iyadoo horaantii dagaalka ku eedeeyay dowladda deegaanka Soomaalidu in ay ciidamadii ugu badnaa ay soo dhoobtay duleedka magaalada Laascaanood isla markaana ay qayb ka yihiin dagaalka. halka dhinaca Puntland dowladda federaalka iyo weliba madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku eedeeyeen in ciidamo ay soo geliyeen magaalada Laascaanood. xaaladda ayaana weli sii cakirmaysa. waxaana mar labaad su'aal ka weydiiyay saaxiibka Wacane oo markaasi isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay iyo weliba dagaalada ka socda duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wacane soo dhawow, magaalada Laascaanood maxaa ugu dambeeyay? aad iyo aad baad mahadsantahay Santiago. magaalada Laascaanood xaaladeeda ayaa ah mid markaasi jawi dagaala iyadoo marba mar ka dambaysa laga cabsi qabo in halkaasi dagaalo xooggan ay ka dhacaan. maamulka Somaliland ayaa weli wada hadaladii kicinta dadweyne iyo weliba sidoo kaleeto hadaladii xanafta lahay u jeedinayaan maamulada dariska sida maamulka Puntland iyo weliba dowladda deegaanka Soomaalida, ayagoo shalayto si cad u sheegay in gabi ahaanba General Morgan oo ah general retire isla markaana kamid ahaa dowladii hore ee Maxamed Siyaad Barre in uu qayb ka yahay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood. waxaana ay sheegeen in General Morgan uu ka soo muuqday mid kamid ah furimaha dagaalka ee magaalada Laascaanood, iyadoo arintaasi gabi ahaanba ay beenowday isla markaana General Morgan uu ka soo hadlay magaalada Garowe isagoo sheegay inuusan qayb ka ahayn dagaal ka socda magaalada Laascaanood isla markaana uu haatan ku jiro bisha cibaadada, isla markaana haddii loo baahdo in gabi ahaanba shacabkaasi loo gurmado uu qayb ka noqon doono, laakiin haatan uusan u diyaarsanayn inuu qayb ka noqdo dagaalka u dhexeeya maamulka Somaliland iyo dadka deegaanka. waxaana uu sheegay in dadka deegaanka iskaga filan yihiin cadow kasta iyo weliba sidoo kaleeto damac kasta oo maamulka Somaliland ay ka leeyihiin goboladaasi ACC. waxaana uu sheegay in labadii bilood ee lasoo dhaafay dagaalka halka ka socday uu og yahay shacabka jabka iyo weliba xasuuqa markaasi ay u geysteen ciidamada maamulka Somaliland. si kasta marka la fiiriyo dagaalka labada bilood iyo weliba maalmaha ka socda magaalada Laascaanood waa mid markaasi Somaliland ku riday khalkhal weyn, ayadoo weliba cadawyo badan ay markaasi ay sheegtay in ay ku soo duuleen isla markaana aysan jirin wax cadow ah oo markaasi ama deegaana oo sida deegaanada dariska haatan qayb ka dagaalka. hore waxay u sheegeen in ciidamada liyuga ay qayb ka yihiin oo dagaalka ay kaga jiraan qaybo kala duwan ama furimaha hore ee dagaalka. arintaasina way beenowday, waxaana runta u sheegay saraakiisha Ethiopianka ee maalmihii ugu dambeysay kusoo qulqulayay magaalada Hargeysa si gabi ahaanba Muuse Bixe ee uga dhadhiciyaan in wax la dagaalamay ay yihiin dadka deegaanka oo aysan ahayn maamulo kale iyo weliba cadow kale oo markaasi soo duulay. Mareykanka ayaa qayb ka wadamada markaasi runta u sheegay maamulka Somaliland isla markaana ku khasbaya in ciidamadooda ay ka baxaan duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Santiago si kastaba dagaal ayaa laga cabsi qabaa mar kasta inuu ka qarxo gudaha iyo weliba duleedka magaalada Laascaanood. Somaliland ciidamadii ugu badnaa ayayna soo dhoobtay ilaa iyo xilligan ma jirto wax tanaasula oo markaasi u muuqdo in markaasi la damin karo xaaladda colaadeed ee ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. aad iyo aad buu mahadsan yahay. kaasi wuxuu saaxiibka Wacane barnaamijka qayb inaga lahaa. daawadayaal idinkana waad mahadsantihiin. wararkeena xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa amaana Allah.